sidaan horey ula wadaagnay ummadda Soomaaliyeed qorshaha xukuumadda waxaa saldhig u ah qodobo ay ka mid tahay ka guulgaarista xasiloonida guud ee dalka gaar ahaan sidii loo sugi lahaa amniga. waxaa kaloo saldhig u ah kobcinta dhaqaalaha iyo in la abuuro shaqooyin lana dagaalamo musuqmaasuq. sidaas daraaddeed waxaan maanta halkan rabaa inaan idinkugu soo gudbiyo waxqabadka xukuumadda innagoo jirnay 60 maalmood keliya. xukuumaddu waxay jirtaa 63 maalmood. sidaas daraaddeed waxaan rabaa in idinka iyo madaxweynaha hortiina aan ka caddayno maanta waxyaabaha inoo qabso. kow, xukuumaddu waxa ay bilowday shaqo iyadoo dalka ay ka jirta abaar aad u baahan. waxaan bilownay inaan isugu yeerno shacabka Soomaaliyeed siday isugu gurman lahaayeen. waxay shacabka Soomaaliyeed ku guulaysteen keligood inay aruuriyaan in ka badan 5 milyan oo dollar. lacagtaasi way dadka Soomaaliyeed u aruuriyeen 20-20-10-10 waa markii ugu horreysay oo dadka Soomaaliyeed ay sidaas u aruuriyaan dhaqaale ay iyagu isugu gurmanayaan. taasi waxa ay qayb ka tahay bilowga dowladnimada. ammaanada shacabka Soomaaliyeed waxaa la gaarsiiyey dhammaan gobollada dalka oo dhan. waxaa arrinkaas lagu caawiyey dumarka Soomaaliyeed, culummada, ganacsatada iyo qaybaha kala duwan ee dowladda. xukuumaddu 60 maalmood ay jirtay waxay ku guulaysatay in qof walba oo u shaqeeya dowladda, in qof walba oo ka mid ah ciidanka la siiyey mushaarkii uu xaq u lahaa iyadoo aanan helin dhaqaale aan ahayn kanay inta badan bixiyaan shacabka Soomaaliyeed. waxaa lagu guulaystay inaan xaqiijinno ammaanada aad noo dhiibatiin haddii aad tihiin shacabka Soomaaliyeed. hadda waxaan bilownay inaan bixinno mushaaraadka bisha 5aad maadaama aan bixinay mushaaraadkii 4 bilood oo la soo dhaafay. waxaan rajo ka qabnaa in aan awoodi doono in qof waliba uu heli doono waxa uu xaq ugu leeyahay dowladda bilaha iyo sanadaha soo socda haddii ilaa yidhaahdo. arrimaha dhaqaalaha waxaan ku guulaysanay inaan ohodno albaabo badan oo u furnaa dowlad xumo iyo musuqmaasuq. waxaan kor u kacay dakhligii soo geli jiray dowladda. waxaan dib u habayn lagu sameeyey qaabka loo maareeyo bixitaanka kharashaadka dowladda oo dhan. waxaan bilownay inaan ka shaqayno sidii la isugu keeni lahaa khubro nagala shaqaysa kobcinta dhaqaalaha dalka oo dhan. waxaan bilownay habraha lagu nidaaminayo canshuuraha dalka iyadoo lala kaashanayo dowlad goboleedyada. waxaan bilownay jidkii Soomaaliya looga dayn lahaa daynta lagu leeyahay oo dhan 5.5 milyan oo dollar. haddii aan dadaalno waxaan ilaahay hadduu yidhaahdo arrinkaasi ku dadaali doonaa in sanad iyo bar gudahood aan ku soo afjarno daynta lagu leeyahay dalka Soomaaliya. haddii aan ku guulaysanno waxaa inoo furmaya albaabada maalgashi. in dayntan laga tirtiro waxaa kaloo oggolaanaysaa inaan dib u yeglaano dowladnimada ummadda Soomaaliyeed. waxaan dowladahan saaxiibka la nahay bilownay inaan kala hadalno sidii aan badeecada Soomaaliya suuq ugu heli lahayn si uu u kobco ganacsiga dalkeenna, dhaqaalaha ganacsataduna uu koro. arrimaha amniga sida aad ogtihiin hadafka amnigu wuxuu ku salaysan yahay gaaritaanka amni buuxa oo ku baahsan dalka oo ciidan bad iyo berri, miyi iyo magaalo, kaasoo sugayana xuquuqda iyo xorriyadda muwaadiniinta Soomaaliyeed. amnigu waa udubdhaxaadka nolosha. waxaan bilownay dargargelinta sugidda amniga magaalada Muqdisho iyo qaybo kala duwan oo ka mid ah dalkii. waxaan bilownay xakamaynta hubka. xakamaynta hubka macnaheedu waxay tahay in la fuliyo qaraarkii ka soo baxay golaha wasiirada kaasoo ahaa inaan hub waaweyn lagu wada karin magaalada Muqdisho, taasoo aan si fiican u fulin. xakamaynta hubka waxaa kaloo ka mid ah inaan la wada karin hub sharci darra ah, in la wadan karo hubka ee xukuumadda iyo dowladdu astaamaysay keliya, iyo in hubka gacanta ugu jira dadka aan xaqa u lahayn inay hub haystaan
وشرعية كويسة الدولة وعند تصاري وعن قادرين جدويوي بدن وشعب كانوا دبادين جري وعن وحن حرد بدن وشرعية كويسة جدويوي شعب الصوماليات لو قادرين جري الحق الدرع arrimaha kale oo xukuumadda u qabsoomay waxaa ka mid ah waxaan dhamaystirnay duulimaadka tooska ah ee muqdisho iyo nairobi waxaa kaloo ku guulaysanay dib loo soo celiyo duulimaadkii habeennimo ee garoonka aadan cadde xukuumaddu waxay ku guda jirtaa dhamaystirka hannaanka lagu maamuli lahaa hawada soomaaliya uuna dhowaan si buuxda haddii yiraahdo ugu soo laaban doono dalka soomaaliya arrimaha wasaaraddu waliba waxay soo bandhigtay qorshaha ay rabto inay hiigsato boqolka maalmood oo ugu horeeya iyo sanadka iyo sanadaha soo socda waxaa la dhamaystiray qorshe buuxa oo ay xukuumaddoo dhani ka qaadan waxaa golaha wasiiradu ku heshiiyeen siyaasad guud oo lagu hagayo dalka iyadoo la fulinayo hadafkii madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka waxaa la xoojiyey wada shaqaynta wasaaradahoo dhan waxaa la xoojiyey la shaqaynta adduunyada waxaan kaloo aan u sheegnay inaan diyaar u nahay isla xisaabtan labada dhinacba annagana inaan la xisaabtamo iyagana inaan la xisaabtamo waxaa dalka intii madaxweyne farmaajo la doortay yimid wasiirada arrimaha dibadda ingiriiska jarmalka ra-iisul wasaare ku-xigeenka turkiga xogeyaha guud ee qaramada midoobay xogeyaha guud ee wadamada afrika iyo madax kale oo aad u tiro badan taasina waxa ay muujinaysaa rabitaanka loo qabo dowladnimada soomaaliya safaradii uu madaxweynuhu ku tegay dalalka dibadda waxaa ka soo baxay guulo waaweyn oo wax ku oh oo la xiriira kobcinta dhaqaalaha wax ka qabashada amniga iyo dowladiska dalka safarada uu madaxweynuhu ku tegay dibadda ayaa waxay xoojiyeen xiriirka ay dowladda soomaaliyeed la leedahay dalalka dariska iyo dunida inteeda kale taas ayaa noo sahashay inaan soo celinno safaradii tooska ahaa ee kenya iyo soomaaliya taas ayaa noo sahli doonta in badeeco badan oo soomaaliyeed loo iibgeeyo dalka dibaddiisa waxaan ku guulaysanay inaan adduunyada ula shaqaysano sidii horese ka duwan wada shaqaynta hay-adaha dowladda wada shaqaynta madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo wada shaqaynta golayaasha kala duwan ee dowladda oo aad u caafimaad qaba awgeed ayaa waxaan ku guulaysanay inaan dalka la qaadqaadno tallaabo aad u hufan oo ay ka mid tahay in amniga dalka uu ka soo wanaagsanaaday dadka magaalada muqdishona maanta ay ku nool yihiin noloshii hore mid ka duwan maadaama ay xukuumaddu jirtay 60 maalmood keliya ay noo qabsoomeen arrimo waaweyn oo la xiriira dhaqaalaha oo la xiriira amniga oo la xiriira dowlad wanaagga oo la xiriira la dagaalanka musuqmaasuqa oo la xiriira la shaqaynta dowladda oo ay muuqato iftiin aad u waaweyn oo ah dowladnimo hufan su-aashu waxay tahay 6 bilood maxaa inoo qabsoomi kara haddii dowladda iyo shacabka soomaaliyeed ay isgarab istaagaan 6 bilood gudahood waxaa bilaabanaysaa inaan si dhaqso ah cadaaladda wax uga qabanno inaan wax ka qabanno qorshihii lagu gaari lahaa 2020 si qof walba oo soomaaliyeed oo codkiisa u dhiibto inaan ka shaqayno xoojinta wada shaqaynta dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada inaan ka shaqayno la shaqaynta baarlamaanka si loo ansixiyo sharciyo badan oo muhiima oo dowladnimada muhiim ah
bilood waxaan xoojin karnaa ciidamada xoogga dalka oo sharafta wejiga iyo karaamada ummadda Soomaaliyeed. waxaan sii hagaajin doonaa amniga magaalada Muqdisho iyo dalka oo dhan. waxaan sii kobcin doonaa dhaqaalaha. waxaan abuuri doonaa shaqooyin. waxaan dhisi doonaa jidad. waan bilownay haddaba annagoo kaashanayna ganacsatada iyo gobolka banaadir inaan bilaabno dhisida jidadka magaalada Muqdisho. waxaan dhisi doonaa isbartiibooyin ka waaweyn tan haddii aan maanta isugu nimid haddii ilaa yidhaahdo. in maanta aan halkan isugu nimid waxa ay ka turjumaysaa sida ugu hagaagay amniga magaalada Muqdisho. waxaan ka shaqayn doonaa sidii aan dib ugu soo celin lahayn warshadeen. waxaan ka shaqayn doonaa sidii aan ula wareegi lahayn waxbarashada una samayn lahayn waxbarasho tayaysan. waxaan ka shaqayn doonaa sidii aan u hagaajin lahayn caafimaadka dadka Soomaaliyeed. waxaan ka shaqayn doonaa inaan ilaashano khayraadkeena gaar ahaan badaheenna haddii sidaas daraaddeed waxaan shacabka Soomaaliyeed ku ammaanayaa sida ay noo garab istaageen muddadii ay jirtay xukuumaddu. waxaan u ballan qaadaynaa inaan diyaar u nahay isla xisaabtan inaan soo hor istaagi doono mar walba si ay noola xisaabtamaan haddii la yidhaahdo. waxaan idin xasuusinayaa shacabka Soomaaliyeed meel walba aad joogtaan in dalkani uu yahay dalka keliya oo aan leenahay. in dal kale aanan lahayn. in dalkani uu yahay ka naga wada dhexeey. inay nagu waajibtaa kulligeen in dalkan aan hagaajisan. sidaas daraaddeed waa inaan isu tanaasulno. waa inaan shakiga u bedelnaa isxaad. waa inaan wadanimadeenna xoojinaa sida uu nagu hogaamiyey madaxweyneheenna madaxweyne Farmaajo. ugu dambayntii waxaan idiin sheegayaa haddii ay dowladdu hagaagto in macnaheedu ay tahay in qof walba oo Soomaaliyeed ay nolosheedu hagaagi doonto.